xireen joogiisu yahay 175 mitir balciisuna yahay 1.8 kilomitir mugga biyaha uu qaadana uu yahay 74 bilyan oo mitir cubic oo biyo ah laguna dhisay $5 bilyan oo dollar wuxuu leeyahay 2 power station 3 ilin oo biyuhu ka furmaan iyo derbiga shubka ah ee biyaha celiya waa mid kamid ah mashaariicda ugu waaweyn ee Afrikaanku samaysteen iyagoo aan kaalmo sidaas helin badanaa waxa lagu dhisay lacag ay dawladdu leedahay qaar kalena dadka ayaa iska soo ururiyay wax yarna Shiinayska iyo Carabaha ayaa ku taageeray waa biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam oo ah biyo xireenka ugu weyn Afrika iyo kan toddobaad ee dunida ugu weyn ahna mashruuca koronto dhalin ee Afrika ugu ballaaran su'aasha isweydiinta laba waxay tahay sidee biyo xireenadu u dhaliyaan korontada marka hore sida magaca ka muuqataba waa in meel biyo lagu soo xiraa kadibna laga soo daayaa joog dheer waa in la helaa biyo ka soo dhacaya meel sare soona jiiraya marin ciriiri ah si ay u yeeshaan xoog biyahaas waxay ku dhacayaan mashiin sida marwaxadda oo kala ah oo wareegaya marka ay biyuhu ku dhacaan mashiinkaas ayaa sii wareejinaya generator ama dynamo generatorkuna wuxuu ku shaqeeyaa qaacido electromagnetic induction ah oo goorta isaga la wareejiyo uu koronto u bedelayo xooggii socodka ahaa ama mechanical energy ayuu u bedelayaa electrical energy halkaasna waxaa ka dhalanaysa koronto ay iska kaashadeen biyaha iyo generatorku badanaa meel laba buurood dhexdood ah ayaa lala eegtaa biyo xireenka haddii la waayana geesaha oo dhan derbi shub ah ayaa looga wareejiyaa labadaas buurood dhexdooda ayaa lagu dhisaa derbi shub oo aad u dheer inta hawshaani ka socota marinkaasna waa in webiga la iska leexiyo si ku meel gaar ah oo loo falo waddo kale oo ay biyuhu maraan markii dhismaha derbiga la dhammeeyo ayaa la bilaabaa in biyihii webiga lagu soo fasaxo si uu u buuxiyo labadii buurood iyo derbiga shubka ahaa dhexdooda tusaale ahaan kan Itoobiya si loo buuxiyo waa in lagu shubaa 74 bilyan oo mitir cubic oo biyo ah waxayna qaadanaysaa 4 ilaa 7 sano si uu webigu u buuxiyo bohoshan weyn ee biyo xireenku taasoo biyo la'aan ku ridaysa dadkii isticmaalaya webiga maadaama biyihii loo dhigay weel uu salkiisu fog yahay xaddiga biyaha loo ogolaanayo inay webiga raacaan si ay dadyagu kale u isticmaalaan waxaa laga maamulaa albaabo marna la xiro marna la furo waana meesha ay ka dagaalamaysa Masar iyo Suudaan oo wada socda oo uu sii maro webiga Niilka buluuga ah ee ay biyo xireenka Itoobiya ka samaysatay si aysan biyo la'aan ugu ridin dadka la isticmaalaya webiga Itoobiya waxay u kala qorshaysay dhowr waji inay ku buuxisay biyo xireenka tusaale ahaan wajigii ugu horeeyay waxay buuxisay 2020 Agoosto oo waxay soo buuxisay ilaa 40 mitir wajigii labaadna waxay buuxisay 2021 kii saddexaadna 2022 Agoosto haddana 90% waa la dhammaystiray mar walba ay biyo xireenkan biyo ku shubtana Masar ayay isku buuqaan heer ay dagaal ku dhawaadaan marka waxa isweydiin leh maxay Itoobiya ka faa'iideysaa biyo xireenkan kow waxay ka helaysaa koronto gaaraysa 6.45 gigawatts oo tamar ah taasoo ku filan dadkeeda oo dhan labo waxay koronto u dhoofinaysaa wadamada dariskeeda ah taasoo ay ka soo xaraanayso dhaqaale wax ku ool ah saddex waxa kor u kacaya awoodeeda warshadaha oo waxay helaysaa maalgashi bannaanka ah maadaama ay haystaan koronto lagu kicin karo warshado waaweyn ajaanibtuna ay maalgashan kardho afar waa kaaba dhaqaale oo muhiim ah wuxuuna u abuuray shaqaalaysiin badan shan waxay saamayn siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba ku yeelanaysaa wadamada ka iibsanaya korontada maadaama ay tamartoodii oo dhan iyaga ku xiran tahay yacni Itoobiya haddii aad koronto ka iibsatid ha ka hor imaan haddii kale way kaa goosanaysaa waxaana istaagaysa noloshaadii oo dhan lix ugu dambayn mashruucaani sidoo kale wuxuu waraabinayaa beero xajmigoodu aad u waaweyn yahay oo haddii ay xitaa abaar dhacdo muddo sannado ah ayay biyahani haynayaan innaga Soomaalida ah inta taariikhdana la og yahay mashruuca biyo xireen ee ugu weyn ee ay Soomaalidu yeelato waa kii Faanoole oo la waday dhismihiisa 1963 ilaa 1978 waqtiga uu qaatay dhismihiisu aad u dheer darteedna ay ku baxday oraahda ah Faanoole faray kama qodna isaga laftirkiisuna wuxuu ku burburay dagaaladii sokeeye mid kale in la haweystana malaha shaqo kale ayaa ka horeysa markii ay Itoobiyaanku bilaabaan inay dhoofiyaan korontada biyo xireenka waxay u badan tahay inaan ka mid noqono wadamada ka iibsada korontada maadaama aan lagu sii tiirsanaan karin korontadan qaaliga ah ee laga dhaliyo shidaalka deegaankana u daran ee qiiqa sii deynaysa ayna saamaynta joogtada ah ku leedahay siyaasadda shidaalka ee aan cagaha qoma ku fadhiyin tani waxay imaanaysaa haddii aysan shirkadaha korontadu la imaan qorshe dhaama midka ay hadda wax ku wadaan ee dhiigmiirashada ah adiga daawadaha ah maxay kuula muuqataa inaan noqono macaamiisha koronto ee Itoobiyaanka mase kula tahay inaan ku sii wadi karno korontada reeraha biilkooda naafaysay wassalaamu calaykum